بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مقعي waxaa la yiraahdaa Ayub Mukhtar ku nool dalka Norway magaalada Stavanger waxaan aad u jeclaan lahay inaan meeshan ka soo duubo video kooban oo ku saabsan arrimaha dalka ka jira iyo weerarka Soomaalida ku socdo waliba ay ku hayaan dadka adduunka hadda ugu caansan ama ilaahay awood leh ugu awood badan run ahaantii waxaan jeclaan lahaa videoga inaan dhameysatid waxaa laga yaabaa 5 to 6 minutes inaan kusoo koobo marka Soomaalida waxaa aad maalmahan loogu weeraraa in ay low IQ yihiin dad oo IQ-gooda aad u hooseeyo Donald Trump sidaas uu ku magacaabay dalka Soomaaliya wuxuu ku magacaabay dal garbage ah dad dhintay dad aan ismaamuli karin 34 years dad aan mataqaanaa wax maamulo iyo kala dambeyn samaysanin marka run ahaantii waxaan lagu tilmaamay inaan nahay dad guud ahaan liito marka arrimahaas maxaa ka jiro marka inta badan Soomaalida hore iska difaacnaa waxaan lagu sheego ma jiraan la yiraahdaa marka maxay tahay IQ iyo EQ wax u dhaxeeyo EQ inta badan waxay ka hadlaysaa emotionalka iyo dadka inay macnaha caadifad wax u sameeyaan IQ-gana qofka markuu problem ku soo gudboonaado si degan inuu problemki uga fikiro xal u raadiyo mataqaanaa solution badan oo fiiriyo marka inta badan ciyaartan chess-ka qofka markuu ciyaarayo wuxuu aad uga fikiraa tilaabta uu qaado tilaabtaas qofka ka dambeeyo maxuu ma aragtay asagana tilaabta uu sii qaado maxaa uga imaan doona tilaabta ku sii xigta marka inta badan dadka chess-ka ciyaar waa dad IQ-gooda mataqaanaa aad u sareeyo run ahaantii markaa fiirisid Soomaalida guud ahaan marka ku miisaanti dhaqankooda waxaan u maleynaa inay sida lagu sheegay inaan dad IQ-gooda aad u hooseeyo waxaana taas ku cadeynaysa waxa isku haysanaa 34 sano anigaan hadda idin la hadlayo markaan anigoo yar ama markaan dhashay wax maaragtay wax dawladda waxba kama aqoonin intaan jiray hadda dawlad ma sheegi karo haddana ilaa hadda waa la haystaa wadankii maamulada loo kala qaybiyay markii maamuladaas la sameynayay yaa lagala tashtay markaan tusaale ahaan dhalinyarada hadda oo kale focus gareeyo dadka Soomaalida ama wadanka Soomaaliya guud ahaan markii laga tago dhaqaalahan oo la leeyahay mataqaanaa waxaan haysanaa shidaal iyo waxaas asadka ugu badan oo Soomaalida haysto waa dhalinyarada 70% population waa dhalinyaro wadamadan hadda qurbaha aan joogno waxay ka walwalayaan inay maaragtay sii duqoobayaan elderable wax la yiraahdo marka dhalinyaradaas marka u fiirsatid waxay u kala safan yihiin ayagoona ka fikirin maamulada loo kala qaybiyay laakiin bal isweydii maamuladaas waxa ku haystaa adiga maamul kasto oo adiga lagu tirinayo laba su'aal isweydii school free ma haysataa ma haysataa caafimaad free ma haysataa public service meelaas xataa hadii aad weysid caawa maamul ku kafaalo qaadaya ma haysataa waxaan ognahay maamul kasto maanta oo wadanka ka jiro in ayna jirin iskuulaad ama caafimaad free maanta hadii aad xanuunsatid meesha rabto joog waa inaad lacag haystaa isku daaweysid qofka aan lacag haysanin meesha ku dhimana okay cunuga Soomaaliga markuu 6 sano gaaro wuxuu xaq u lahaa inuu primary school la geeyo haddii waalidku uu lacag haysanin cunugaas waxba ma baranayo isku xuquuq ma ah midka caadiga ah waalidkiisa lacag haysto dadkan waxbarashada iska wada bixi karaan marka maamulkan adiga aad difaacaysid ama hogaamiye kooxeedkan u dagaalamaysid macnaha ma ka bixi karaa ama mataqaanaa baahiyaha aad u baahan tahay ma ku sii karaa maya haddana marka wax laga sheego waa u dagaalamay okay calankiisa gacanta ku soo xiranay waxa leedahay okay maamulkaas aniga aan ka tirsana haye meesha lagu dhisay ma joogto adiga ma lagaala tashto xaq ma u leedahay in lagaala tashto yes of course waa u leedahay okay 40 sano ku sii socnaa dawlad waligeed ma arkin goormee aad u istaagaysaa inaad dawlad ka fikirtid nabi alayhi salaatu wasalaam wuxuu diri jiray dhalinyaro anagana lamida ama naga yar waxa loo diri jiray dawlado waaweyn inay gaarsiiyaan risaalada inay quraanka soo baraan masaajidka laga maamuli jiray siyaasadda okay
dhalinyarada maanta Soomaalida ahayd waxa arkaysaa TikTok waxa ku jiraan ilaa 600 qofood ama 1000 qofood ama 2000 qofood online ka ah ninka ugu IQ yar TikTok ka hadlayo waana la wada sacbina 3-4 hours ku jira waxa laga yaabaa 3-4 hours kaas haddii uu isticmaalo inuu xirfad ku barto within 6 months inuu cyber security and AI machine learning waxyaabaha ugu sareeyo waxbarasho inuu barto hadduu xitaa wax kale soo kordhin ma ka fikirto waa maya kuwa wadanka joogo waa lagu soo dadaalay qaarkood jaamacadaha ka baxeen kafeeyada la iska fadhiyaa hooyadiis ama aabihiisa u soo shaqeynayo ma ka fikirayo horumar marka ana waxay ila tahay waxaanu lagu sheegay oo low IQ ah inay jirto anaga dhan emotional aw badana nina imaanayo wax yar oo macnaha oo wadaniya ah waxa soo leeyahay isla marka waa la laabkaca Facebook meel kasta loo camira barita markuu madaxweyne noqdo meel uu fariisana dantiisu maaragtay oo qabsana hadda right now nimanka isaysto hal nin oo ajenda sax ah sheegi karo ama dhigi karo qorshahaas aniga dawladdan hadda aan ku haystaa ma jiro haddana way isaystaan nin kasta meesha gafuurka taaga okay dadka dhan oo gadaal marsaday marka laga reebo odayaasha oo lacagta siiyay cid intay soo hor istaagtay dhigi karto warniyo naga hor wareeg maxaan uga haystaa ma jirto meel dhaweyto waxaa maqlaayay in laga wacay Nairobi niman ajaanibi ay waceen la dhawriyada heshiye 1 Febraayo hadda waxay u socdaan Muqdisho marka hore ayaga ma garanin hadda fursad la haystay maxay tahay wadamadii waaweynay oo Soomaaliya marka hore ku mashquuli jireen ayaga isku dhigan fursad la haystay marka waxa waaye in maanta annaga aan waqti siino la fariisto aqliga laga shaqeysiyo la yiraahdo okay shalay intaas iska daba dhiganin waa iska daba jiitamayna laakiin maanta war isbedel aan sameeyno meesha aan ka kacno ma fahanti marka aniga waxay ila tahay waxa la dhahay ninkii abwaanshuba wuxuu dhahay hal qora markay tahay bay ummadu horumar gaartay marka in fadhiga aan ka kacno dhalinyaradana doorkeedii ma ka soo bixina doorka dhalinyarada meesha inay maaragtay soo istaagaan waana mahadsantihiin waqtiga ay siiseen waxaan idinka codsaa videoga inaad share gareysiin cidii Facebook ku aragtana mataqaanaa Facebook share gareyso na follow gareyso YouTube cidii ku aragtana subscribe ay sameyso marka waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum